Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti waxaan asxaabay kusoo dhawaada wararka ciyaaraha maanta. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato fadlan subscribe siina share garaysa asxaab badan u gaadho. Aynu eegno wararka ciyaaraha maanta. Waa kuma tababaraha ku guuleystay shanta horyaal ee ugu waaweyn Yurub. Toddoba ka mid ah rikoodhada uu Messi ka sameeyay La Liga ayaan la jebin doonin. Marcelo ayaa taariikh cusub looga diiwaangeliyay Real Madrid iyo warar kale. Kadib markii ay Real Madrid ku guuleystay horyaalka La Liga, Carlo Ancelotti tababaraha kaliya ee ku guuleystay horyaalada ugu waaweyn ee shanta ah ee la kala ciyaaro wadamada Talyaaniga, Ingiriiska, Spain, Jarmalka iyo Faransiiska ee loo kala yaqaan Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga iyo Ligue 1. Ma jiro tababar kale oo sameeyay taariikhda noocan oo kale ah oo ku guuleystay shanta horyaal ee loo yaqaan shanta horyaal ee ugu waaweyn. Sanadkii 2004 ayuu Carlo Ancelotti ku guuleystay horyaalka Serie A oo uu la qaaday AC Milan, waana sanad kadib markii uu ku hogaamiyay Champions League oo ay qaadeen. Sanadkii 2010 ayuu horyaalka Premier League la qaaday Chelsea. PSG ayuu seeska u dhigay markii ay qoyska reer Qatar iibsadeen, waxaana uu sanadkii 2013 ku hogaamiyay horyaalka oo ay sanado aad u badan ka maqnaayeen. Bayern Munich ayuu xilli ciyaareedkii 2016-17 la qaaday horyaalka Bundesliga, waxaana uu taariikhdiisa dhamaystirtay xilli ciyaareedkan oo uu Real Madrid kula guuleystay horyaalka La Liga. Sidaas ayuu ku noqday tababaraha kaliya ee hantiyay shanta horyaal ee ugu waaweyn. Kabtanka kooxda Real Madrid ee Marcelo ayaa noqday ciyaartoyga ugu koobabka badan taariikhda kooxdaasi kadib markii ay Real Madrid ku guuleystay horyaalka wadanka Spain ee La Liga. Marcelo ayaa taariikh cusub looga diiwaangeliyay Real Madrid iyadoo qandaraaskiisa ku eegaya xilli ciyaareedkan oo la sii sabootin doono bisha dambe ee May oo uu ka tagi doono kooxda. Marcelo ayaa Real Madrid kula guuleystay koobkii 24aad ee intii uu joogay Santiago Bernabeu kadib markii ay Los Blancos qaaday horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan iyadoo 4 ciyaarood ka harsan yihiin dhamaadka xilli ciyaareedkan. Guusha Real Madrid ee horyaalka ayaa timid markii ay 4-0 ku garaaceen Espanyol oo marti u ahayd. Marcelo waxa uu Real Madrid kula guuleystay 6 horyaalka La Liga ah, 4 Champions League, 4 Club World Cup, 3 UEFA Super Cup, 2 Copa del Rey iyo 5 Spanish Super Cup. Sanadkii 2006 ayay Real Madrid ka soo iibsatay kooxda reer Brazil ee Fluminense iyadoo loo carbinayay inuu dhaxlo booska Roberto Carlos oo waqtigaasi ka sii tagay naadiga. 7 ka mid ah rikoodhada ugu fiican ee Lionel Messi ee La Liga ayaan weligood la jebin doonin tan iyo markii uu saftay kulankiisii ugu horeeyay ee La Liga bishii Oktoobar 2004. Messi waxa uu ku guuleystay 10 horyaal halka uu jebiyay boqolaal rikoodh. Waxaynu eegnaa 15 ka mid ah rikoodhada ugu fiican ee La Liga ee uu haatan haysto. Waxa hubaal ah in aan weligiis laga jebin doonin. Messi waa gooldhaliyaha ugu sarreeya taariikhda La Liga isagoo oo dhaliyay 474 gool, 520 kulan oo uu saftay. Karim Benzema ayaa haatan hoggaanka u haya gooldhalinta La Liga isagoo oo dhaliyay 217 gool. Messi ayaa haysta rikoodhka goolasha ugu badan hal xilli ciyaareed oo La Liga ah isagoo oo dhaliyay 50 gool 37 kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkii 2011-12. Messi ayaa dhaliyay goolasha ugu badan ee hoomka, waxaana uu dhaliyay 277 gool iyo goolasha martida oo uu dhaliyay 197 ee taariikhda La Liga. Halyeeyga Barcelona ayaa haysta rikoodhka goolasha ugu badan ee hoomka ee hal xilli ciyaareed isagoo oo dhaliyay 35 gool iyo goolasha martida ee hal xilli ciyaareed isagoo oo dhaliyay 24 gool. Messi waxa uu gool ka dhaliyay 38 kooxood oo kala duwan horyaalka Spain isagoo oo dhaafay rikoodhka Raúl González oo ka dhaliyay 35 kooxood. Messi waxa uu sidoo kale caan ku yahay abuurista fursadaha saaxiibadiis, waxaana uu caawiyay 192 La Liga in ka badan ciyaaryahan kasta. Waxa uu haystaa rikoodhka caawinta ugu badan hal xilli ciyaareed ee La Liga. Messi waxa uu badiyay 383 kulan oo La Liga ah intii uu joogay Barcelona. Ma jiro ciyaaryahan weligiis badiyay kulamo intaasi ka badan. Manchester City ayaa dib loo wareegtay hoggaanka horyaalka Premier League oo galabta ay si ku meel gaar ah u sii qabatay Liverpool. City ayaa 4-0 ku karbaastay Leeds United oo ay marti u ahayd. Kulanka oo uu tababare Pep Guardiola siiyay ciyaartoydiisa waaweyn oo uu sii dhigtay ciyaarta Real Madrid ee lugta labaad ee semi-finalka Championka ee Arbacada ayaa waxa ay kooxdiisu si fudud ku heshay 3 dhibcood oo ay dib ugu soo laabatay kaalinta koowaad iyadoo 4 ciyaarood ka harsan yihiin dhamaadka xilli ciyaareedka.
asxaabay wararkeena ciyaaraha maanta waa naga intaasi. Assalaamu calaykum.